daawada halkan aan imika joognaa waa barandaha sare barxadda sare ee hoteelka oo idinka arkaya muuqaalka quruxda badan ee hoteelka dushiisa hoteelkaasi ayaanu kula caawinaynaa caawa dadweynaha Soomaaliland ee ku dhaqan oo kuwii horena la socodweynay kuwa dambe aanu barxaddan sare ugu soo galnay la caawin doono oo imika u tagi doono ka codsan doono in la caawino daawadayaal imika barxadda sare ee hoteelka waxaan ugu nimi dhiman dhalinyaro oo ku caawinaya dhinacayga bidix waxa fadhiya Amiin waxa ku xiga Axmed Cumar waxa ku xiga Gaas waxa ku xiga Maxamed Xato xaga waxa ka fadhiya Qaadir ka fadhiya xaga waxa fadhiya jiray Maxamed Sulaymaan xaga waxa fadhiya Cabdi Xaaxi dhamaantood aad baan u salaamayna waxaan doonaa inaan la caawino aad baan u soo dhaweynaa Maxamed inaad nala caawiso aad baad u mahadsantiin Maxamed Amiin adaan kugu soo horeyn doonaa caawa waxaan fadhinaa bacda hoteelka ku caawinaynaa anagii dadweynaha waxaad nala wadaagi doontaa adigu Amiino horta waan ku faraxsanahay inaynu halkan intan oo dhalinyaro ah ay ku kulmeen waqti fiican iyo time fiican iyo caawis fiican insha Allah inaan wada qaadano warajiniya waan kaaga mahadcelinayaa Maxamedow Chaniskan aynu aad soo keentay intan oo dhalinyaro horta barnaamijku ma inoo furiyaayo dhalinyaradeenna waan soo dhaweynayaa asxaabteena cawiskuna inoo furan yahay bal kaftan badan iyo sheeko badan insha Allah caawin wadaagi doona hadii Ilaahay ka dhigo insha Allah Amiinad baad u mahadsantahay waxa ku xiga Cabsaaq waxaan ugu soo dhigna barnaamijkan cawis ku caaway dalkaaga Cabsaaq adiga su'aashan ku weydiinaya wax weeye waxa tahay nimankan qurbaha iyo dadka aadka ugu yar dheereeyay dadka inay baxaan iyo marka lagu yiraahdo dhoof iyo waxa aadka uga soo marka maxay tahay maxaad oranaysaa dadkii qurbaha iyo dadka dalka maxaad faraysaa bismillaahir rahmaanir rahiim horta ku faraxsanahay barnaamijkan cawis ku caaway dalkaaga waribku horta cawayska lagu sheegay bay ugu wada aragnay waxa jira qolooyin halka qurbaan lagu yar haysato inta meel yar quruxda lagu soo sawiraan ay hore yar wada arkay dadkii wasiya ayaan wax kaas loo sii qulqulaya waxaan doonay bayna dadka barno horta dhulkan quruxda badan leh dalkii sidoo yahay qaabka wax u socdaan tabeeta waaba lagu haystay aynu barta ka sii aanba qaadna cawisideedii hawleelay Allah masala Maxamed aynu ku caawinay dalkeena inagoo nabada isagoo qurux badan dhalinyaradana waxaan leeyahay intan aynu bartan ku sii yaacnaan suuqeynta inta yar xoolaha aynu caawisay inta la igu dhalay inta furano inta in ka badan bay nooga soo baxaysaa ina adeertay ila calay ya aad baad ma santahay Cabsaaq Gaas waxa uu xubin muhiim ka yahay bahda Daras Media isla markaana fikirka barnaamijkan ku caaway dalkaaga ayuu qayb muhiim ka yahay oo talo muhiim ku lahaa dhinaca bidix waxa ka sii xiga Maxamed Xato oo malatriya ciyaaraha dhinaca madaxweynaha mise waxaan saxafiga weyn ee ka jirta marka ma xogso dhow barnaamijka ku caaway dalkaaga Maxamed Cumar aad baad walaal u mahadsan tahay kulli cawiska imika waa soo dhaweynaya barnaamijka ku caaway dalkaaga oo bahda Daras Media ee hormood ka tahay Axmed Cumar iyo Maxamed Cumar iyo Axmed Cumar iyo Gaas horta habal abuurnimada fiican ee soo kordhiseen aad baan idinku mahadnaqaya wana soo dhaweynaya barnaamijkan goobo lagu caawiyo badan oo dalka ku soo badanay imika ayaa jirta oo muhiima fikradda inaad keentaan aad baan idinka mahadcelinayaa dhulkeeniyo nabad oo aynu ku caawinayno iyo dalkeeniyo iyo dadkeeniyo nabadana aad baan u soo dhaweynay wada arkay goobaha quruxda badan leh aynu ku leersanayno inaad umada gaarsiisaan in goobaha caynkaasi jiraan oo aad halaaburnimada keentaan aad bay aan idinka mahadcelinaya Gaas ba kaftamay isagu qolada qurbahana la kaftamayo meelo qurux badan bay noo soo sawiraanay noo saxaysanay laakiin inagu waxaanu dheernahay kuwaasi inaan dalkeena iibgeeyno mar ayagu hadii dal kale ay iibgeynayaan oo kale laakiin tana ka miisan bayna iibgeeyno dalkeena iyo dadkeena iyo dhulkeena quruxda badan marka intaas aan kaga baxay aad baan idinka Axmed aad baad u mahadsantahay imika waxaanu u tagi doonaa Axmed Cumar waxa uu ka mid yahay hawlwadeenada iyo fikradda ay ku dhisan tahay bahda Daras Media iyo barnaamijka ku caaway dalkaaga waxa markuu soo dhow waxa waan dhawahay kulli waxa oran lahaa wada asxaabta watri makaliyan wax ku darsanaya oo deeran cawiskina aan ku qorxinaya haleesun nabadey waxa qaba ninka adiga oo nool nimca kula wadaage nabciyay abaarey dogi nugaaliyo naqaceeliyaye naruroy hadhka ku nastay yaa nuural cayn يا نور العين سيدنا بركو إيجو يا هاي حياك الله
waa axmed cumar soo fanaan baa heedo cod baa ku jira san laguma ogeyn be war heedhe meeshan joognaa waa hudheeladii dambe quruxda badnaa looma baahna heesaha noocana waa kuwii berigii hore qaraamiga ahaa heesahan dambe hadda hees tiraado ma maqashay hees waxaan saaxiib anigaa ku jecel sax iyo tukalo berigii hore waxaan jeclaa heestaa uu axmed sheegayo laakiin imika waxaan jecelay heesaan dama hees maqashay anaa isku kaa marmaray ilaa qiyaamaha leedha luqaada way axmed cumar iyadoo cod ahaan noo keenay heestaan waxay noqonaysaa allow yaa malka badan malaayiin ka baxsho intuu meher kugu xidho dabeed kaa furo maryaha hatala isku kaa maro ilaa qiyaamaha isku kaa maro markaa xagga heesaa dambe ayaa ka wanaagsan war heedhe hees xumayaan lagu cadaabine waxaan hees maahe diibaad ka dogeysaa laakiin anu casigan dambaale kuwa dambe la socda iminkana waxaanu gudbi doonaa dhinaca kale waxa fadhiya cabdiqaadir kabadhe oo mas'uul xogayaha xisbiga kulmiye degmada 6 ka joogna iyadoo aan barnaamijkeenu siyaasad ku salaysan haddana maadaama maxamed baanu sheegnay xilkiisii haddana cabdiqaadirna xilkiisii la sheegay xaggan wax fadhiyan jireen maxamed Suleymaan oo ah halwadeen ka tirsan telefishinka caalamiga ee qaranka Soomaaliland cabdiqaadir soo dhow barnaamijka aad u maasantay maxamed cumar barnaamijkan caawa aad ku xisaab badan isku nimid aad baan kaaga mahadcelinayaa saaxiib adiyo dhammaan asxaabta soo qabanqaabisay waan soo dhaweynaynaa meelo far badan baa la doonaya in la booqdo dhalinyartii Hargeysa way fadhidaa intii bilaa xalaaqada ciyaarsi maahay tii kale ee la sheekaysanayay dhalinyartu xoog bay u sheekaysanaysaa horumarka dalka laga sheekaysanayaa horumar shakhsiyadeed baa laga sheekaysanayaa caawa sheekooyin badanna waan idiin hayaa dee waan soo dhaweynayaa saaxiib maxamed cumar way cabdiqaadir aad baan kaaga mahadcelinayaa imika markaan leenahay markaad leedahay dhalinyarta qaar baa ku bedel xanaaqada ciyaara kuwa laftooda maxaad adigu kula talinaysaa fikiraan leed kuwa laftkooda waxaan leeyahay war ka soo baxa bal noloshaa yare muurgaayo bal dee nala soo reega tan kale aad u qurux badan oo yaa taa marka aad cerka yar marto waxoogaa afku ma yar taagaysaa moogti laakiin tan caawa dhan baa sheekaysaa niyo aad baa maasta cabdiqaadir xaggan wax fadhiyan jiray maxamed Suleymaan injineer soo dhow barnaamijka cawada dalkaaga iyo bahda Daras Media waa ku dhaweysaa maxamed cumar waxaana kaaga mahadcelinayaa barnaamijka fiican ee aad ku soo gudhisay ee ku caawiyay dalkaaga hooyo wallahi barnaamij loo baahnaa baa barnaamij ay bulshadu iyo dhalinyaradu ay tabaysay baa maadaama magaalada Hargeysa ay imika sii fidayso oo caasimadii dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland wallahi barnaamijkan waa barnaamij aan kaaga mahadcelinaa saaxiib aad baa maasan tahay aweyska aan idin wadaagna dhamaantiin aad baan ka mahadcelinaa annaga iyo bahda Daras Media iyo hawlwadaanada barnaamijkan ku caawiya dalkaaga dhamaantiin aad baa maasantiin